الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaalo badan oo jahwareer siyaasadeed ayaa ka muuqda dawladeena dhexe. Waa la socotaan hadda ka hor in maxaa la dhahay dadweynihii oo reer Waajid iyo reer Xudur ayagoo dhibaatadii waagi Cabdullaahi Yuusuf ay og yihiin oo markay Itoobiya ka bixaysay muujiyay taageero ay u qabaan maxaa la dhahay Itoobiyaanka. dawladda dhexe waxaa ka soo yeeray mas'uuliyiinteedii iyo xataa agaasimaha wasaaradda gaadiidka wuxuu yiri waa wacelo maxaa la dhahay dadka koonfur galbeed gaalo waaye Itoobiya taageeray muddo dhan hadda waxa waaye idaacadaha waxa waaye reer koonfur galbeed waa Itoobiyaan waa gaalo kalkaal waxaas la dhahay waa maqashan xalay heshiiskii dhacay iyo madaxweynaha hadalkiisii oo uu sheegay inay dawladda Itoobiya ay tahay dawlad u soo gurmatay shacabkan Soomaaliya oo qayb weyn ay ka qaadatay. runtii waxa waaye annaga haddaan hadalno waxaan nahay gaalo kalkaal adiga haddaa hadashid waxa waaye waxaa tahay maxaa la dhahay waa wax fiican aan samaysay arrintaas maaha mid soconayso. hadda kor haddaa xasuusantihiin 1995kii magaaladan waxaa soo weeraray nin generaal Ciidi la dhahay ciidan wato oo Oromo la socota 3,000 warshadaas xasay degeen magaaladan 3 sano ay haysteen dadkii ka saarayaan anaga Oromadaas markaas oo ay wateen hawiya noo keenay anaga Oromo. waxa waaye dawladda dhexe waa la socota xilliga Cabdullaahi Yuusuf madaxtooyada ay tagaysay Itoobiya maanta marka qaar kamid ah dadkeena oo Waajid degan ama Xudur degan ay arkeen dhibaatooyinkii hadda kor ku dhacay ayagoo mudaaharaad sameynaya barnaamijka ay leeyihiin Itoobiya nagama tagayso waxa lagu dhigi waa wacelo waa gaalo kalkaal ninkii saas dhahay xataa waa agaasimo xil xataa lagama qaadin dawladda kama hadlin muddooyinkan hadda waxayna dhahayeen koonfur galbeed dadkeeda waa maxaa la gaalo kalkaal gaalay la jiraan. waxa waaye waa hadalkii hadda kor oo generaal Ciidi yiri dadkan gaalay la jiraan asagana gaaladiina noo keenay waa nasiib darati ugu weyneed waay. aniga waxaan rabaan sameynaa annaga nama gumaysanaysaa annaga dadkii soo halgamay SNF oo haraadigi siyaad bar markay inta qabsadaan oo magaalada Madiinatul Mawd la dhahay dadkii ka saarayaan kamid ah qorigu wataan Umar Jaasad kilinka shanaad ka yimid ilaa afgooy qabsaday dadkii ka saarayaan kamid ah aniga Ciidida qabsaday 3 sano haystay dadkii ka saarayaan waan fahandino ba 5 sano oo kale haystay. markan waxa idin sheegaynaa haddana waxaan ugu wadaan waxaan leeyahay waxba idinka waxa tiin mar waxa waaye wax annaga waxaan rabnaa keenayna gaalan keensanayna waxaan keensanaynaa maxaa la dhahay qolo kale keensanayna ciidamo Mareykan keensanayna idinka waxaad keensanaysaan mana hadli kartaan annaga idin xukunno taas waa idinka diin horaan u diin 3 jeer ana soo weerarteen ay idinka diin. marka waxaan nasiib daraa shirki xalay hadalkii xalay waa dhageysanayseen in Itoobiya sanadkan dhan lagu caayinayo dadkan koonfur galbeed wacelo waaye waa Itoobiyaan waa gaalo ha lagu jihaado jihaadkeena ku banaysanayeen maanta adiga saxiixay adiga ogolaaday Itoobiya maxaa la sheegtay inay yihiin dadkii wadankan maxaa la dib u xireynta Soomaaliya midnimada Soomaaliya difaaca Soomaaliya dadkii maxaa la wadankan wax ka qabtay aad leedahay. markaan annaga qalada idin ka tirsanayna ninkii darad nacaynay lama soo qabanin wacalaatiina dhahay haddana arintaana la sameeyay haddana maxaa raaci ma idin haanayna qowsaar ma idin haanay ma noqonayno wadankan waa difaacina deegaanadeena waxa waaye koonfur galbeed deegaanada ay leedahay waa 6 gobol qalbigeena ku jira caruurteena u sheegaynaa in 6 gobol ay tahay waa xureysanayna insha Allah haddii Ilaahay maalinta aan ahayn aad arki doontaan hadalkayga deegaanadeena waa xureysanayna waan isu imaanayna dib u tashanayna hadda kor markaan tashanay aan deegaanadeena xureysanay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.